kusoo dhawaada tabaniya taxliil kale oo kamid ah wararka ugu waaweyn caawa ka jira gobolka bariga dhexe iyo waliba xiisada oo cirka isku shareeraysa qodobadaan idin hayana waxa kamid noqon doona dowladda Iran ayaa habeenkii toddobaad la kulmaysa weerar xoog leh oo ay ku qaadayaan ciidamada wadanka Mareykanka iyadoo la soo warinayo caawa duqeymo kale oo hor leh inay ka dhaceen gudaha wadankaasi haddaba deegaanada la weeraray ayaan idinla wadaagi doonaa khiyaarta inala socotay meel kasta oo aad joogtaan ciidamada wadanka Kuwait ayaa ku dhawaaqay in askartooda qaybo kamid ah lagu dhaawacay weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha wadankaasi samarkaana Iran ay samaysay baaliri duqeymihii ugu xooga badnaa ee laga soo warinayo deegaano kala duwan in laga arkay wasiirka muraha dibadda ee wadanka Iran Dr. Abbas Araghchi ayaa ku dhawaaqay hanjabaad culus waxna uu leeyahay waxay u muuqataa dowladda Iran shacabkeeda dhiigga ka daatay in uusan noqon doonin mid meel cidla ku baxay oo Tehran ay ka jawaabi doonto sida ugu dhaqsiyaha badan weeraradaasi iyo waliba xaaladaha kama dambaysta ah ee dowladda Iran ay qaadi doonto haddaba arrinta la xiriirta Araghchi iyo waliba goodinta uu jeedinayo ma lagu macnayn karaa dowladda Iran inay doonayso aagag cusub oo dagaal in ay furto Donald Trump waxa gaaray culayska iyo waliba kulaylka xoog leh ee dagaalka uu kala kulmayo waxa uu digniin xooggan u jeediyay qaar kamid ah warbaahinta wadanka Mareykanka isagoo sheegay in qaarkood uu kala noqon doono ruqsadda haddaba telefishinada qalqalka wajahaya caawa yaa kamid noqonaya barnaamijka ayaan khiyaaray ku la fakuri doonaa ciidamada ilaalada kacaanka waxa ay ku dhawaaqeen caawa in ay markab kale oo horle ay bartilmaameedsadeen iyo waliba sheekooyin guud ahaanteedba taaban doona gobolka bariga dhexe oo kamid ah Trump oo xaaladda dagaalka doonaya inuu isbedel sameeyo iyo waliba ilaalada kacaanka oo daabacay sawirka guud ahaanba maraakiibta dagaalka ee gobolka bariga dhexe jooga ee Mareykanku uu leeyahay waxna ay leeyihiin haddii Trump uusan aqbalin inuu joojiyo dagaalka ka dhanka dowladda Iran maraakiibtaasi badda ayaa la qoosin doonaa waa sida ay Iran caawa tiriyeen habeen wanaagsan khiyaarta nala socotay tabintan iyo taxliilkan ayaan ku eegayaa caawa oo ay taariikhdu tahay 18 bisha July sanadka 2026 caawa waa habeen kale waa taariikh kale waana sheeko kale oo ka soo baxaysa gobolka bariga dhexe habeenkii toddobaad ayaa la duqeynayaa wadankaasi oo xiriir ah gaar ahaan deegaanada ku yaala koonfurta wadankaasi war ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa lagu yiri waxaynu caawa duqeynay bartilmaameedyo kala duwan oo ciidamada wadanka Iran ay kala kulmi doonaan nugay burbur iyo waliba dhibaatooyin soo gaara ciidamadeenu waxay u istaageen baaliri burburinta 4 doomood ama maraakiib oo dowladda Iran ay leedahay taas oo muujinaysa in isbedelo waaweyn aynu gobolka ka sameeyna ayaa la leeyahay haddaba waxa muuqanaya in dowladda Iran ay la kulmayso duqeymo Trumpna ay ka go'an tahay dagaalka weerarka cirka ah markii uu nugleeyo wadankaasi waa sida uu damacsan yahay in ciidamada lugta oo halkaasi ku soo fasaxo ilaa iyo 50,000 oo kamid ah ciidamada dowladda Mareykanka ayaa caawa howlgalkaasi la sheegaya inay qayb ka yihiin oo gobolka bariga dhexe jooga dhinaca kale ciidamada Kuwait ayaa ku waramay in askartooda ay waxyeelo ka soo gaartay duqeymihii ugu dambeeyay ee dowladda Iran ay ku garaacday qaybo kamid ah wadankaasi Kuwait ilaa aroornimadii hore ee saaka bay yiraahdeen waxaynu la kulannay weeraro diyaarado gantaalo iyo waliba dhaqdhaqaaq xooggan oo ciidamadeenu cirka ay la tacaalayeen taas oo si istaba jooga dufcad raxan iyo waliba koox ay u soo deynayaan diyaarado iyo waliba gantaalo kala duwan ciidamada Iran ilaa waxay beegsatay baaliri iyadoo adeegsanaysa diyaarado iswada iyo waliba dhaqdhaqaaqyo military ay sameynayeen gantaalada waxay ku garaaceen saldhigyo ciidamadeenu ay leeyihiin dagaalka cadowtinimada ah bay leeyihiin waa lahjada ay wax ku qoreen Kuwait waxa uu sababay dhaawaca qaar kamid ah ciidamadeena dhulka taas oo howlgalladii ugu dambeeyay dagaalku ay sababeen baaliri
waxaana ciidamada Mareykanku ay beegsadeen goobo ka mid ah warshado iyo waliba deegaano loogu talagalay baa la yiri quwadda korontada in laga soo saaro ciidamada Iran qaraxyada ay sameeyeen ayaa sababay dab weyn in uu ka kaco warshada korontada ee wadankaasi Kuwait ay leedahay Iran waxay u muuqataa in ay si adag uga jawaabtay tacadiyada iyo waliba duqeynta dawladdaasi ay kala kulantay gudaha wadankaasi iyo waliba dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee ka taagan gobolka Bariga Dhexe waayahay haddii aan eego wararka kale ee ka soo baxaya dhinaca dawladda Iran oo caawa duqeyn la kulmaysa wasiirka amuraha dibadda Abbas Araghchi ayaa hadlay waxa uu leeyahay dhiigga shacabka Iiraaniyiinta ee daadanaya macna darro kuma bixi doono jawaabaha la bixinayana dhammaantood waxay noqon doonaan kuwa argudasho ah waa hadalkii ugu adkaa ee wasiirkaasi qaybta ka haya malafyada wada xaajoodka Iran iyo Mareykanka uu hadda jeediyay wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iran Abbas Araghchi ayaa si adag uga hadlay geerida 3 qof oo rayid ah oo ku dhintay duqeyn lagu beegsaday bundada Bandar Khamir iyadoo la sheegay in dawladda Iran aysan marnaba ogolaan doonin in dhiigga uu noqdo baa la yiri mid lagu argudan doono oo aan cadaalad heli doonin Araghchi wasiirka amuraha dibadda Iran weeye isagoo hadlaya waxa uu yiri marnaba ma ogolaan doono in dhiiggoodu uu noqdo hudur iyo waliba mid aan laga jawaabi doonin oo shacabka Iiraaniyiinta dhibic kasta iyo gobo kasta oo dhiiga oo dhulka uga dhacda waxay noqon doontaa mid yeelan doonta xisaab waa sida ay Iran caawa ku goodanayaan duqeymaha oo ay wararku sheegayaan in ay fuliyaan ciidamada Mareykanka ayaa lagu beegsaday buundooyin ku yaala Bandar Khamir ee gobolka Hormuzgan ee koonfurta wadankaasi Iran bundadaas oo lagu tilmaamayo mid istiraatiiji ah iyo waliba 5 kale oo bundo oo Mareykanka 24 saac la soo dhaafay ay duqeyn ku burburiyeen sida ay sheegayaan mas'uuliyiinta Iran wararka waxa uu sababay dhimashada 3 qof iyo dhaawaca 9 kale mas'uuliyiinta Iiraaniga ayaa cambaaraya wararka iyagoo ku tilmaamay mid lagu bartilmaameedsanayo kaabayaasha dhaqaalaha ee wadankaasi jamhuuriyadda ciidamada badda ilaalada kacaanka ee dawladda Iran oo caawa iska horimaad kale la galay kuwa Mareykanka iyo iska caabin diyaaradaha dagaalku waxay leeyihiin waxaan bartilmaameedsanay markab kale oo maraya marinka Hormuz taas oo ka dhigan Iran markabkii tallaab qaadaba in ay 5 tacal iyo calaacasha ula tagayso oo ay ka dhigan tahay in aysan jirin cid la baryayo oo dagaalku noqonayo mid sandulla ah oo Mareykanka ugu dambeyntii gaarsiiyay in tallaabooyin dagaal oo duqeyn dhiig bixin ah oo ku qaado ciidamada wadanka Iran ilaalada kacaanka ee jamhuuriyadda islaamiga ayaa bartilmaameedsaday markab watay calanka Thailand kaas oo la sheegay in uu isku dayay inuu ka gudbo marinka Hormuz isaga oo aan haysan baa la yiri ogolaashiyo ka timid dhinaca Tehran wakaalada wararka ee Tasnim oo xiganaysa ila wareedyo Iiraani ah ayaa xaqiijiyay in markabka la beegsaday kadib markii uu isku dayay in isagoo aan fasaxaysan uu isaga goosho marinkaasi raggu ay ku loolamayaan ilaa iyo hadda lama shaacin qasaaraha ka dhashay weerarka xaaladda shaqaalaha markabka iyo waliba halka markabka uu ku dambeeyay dhinaca kale shirkadda iskale markabkaasi ee la socotay dhaqdhaqaaqa maraakiibta caalamiga ayaa sheegtay in Khamiistii shalay ahayd marinka Hormuz ay ka gudbeen oo kaliya 8 markab tiradaas ayaa lagu tilmaamay tii ugu hooseysay muddo 3 toddobaad ah sida wararka hadda la helaya ay tilmaamayaan war degdeg oo hadda soo dhacayana waxa uu tilmaamayaa in qaraxyo kale laga maqlay magaalada dekada weyn leh ee Bandar Abbas ee koonfurta wadanka Iran warbaahinta Iran ayaa sheegtay in qaraxyo laga maqlay magaalada Bandar Abbas oo ku taala koonfurta Iran gaar ahaan xeebta gacanka Hormuz ee hadda la isku haysto ilaa hadda lama shaacin waxa sababay qaraxa iyo waliba haddii ay jiraan qasaare kale oo dheeri ah haddii aan sii eego wararka iyo taxliilaadka kale ee caawa ay sii daynayaan warbaahinta gobolka Bariga Dhexe iyo waliba dhaqdhaqaaqyada ugu weyn ee jira madaxweynaha dalka Mareykanka oo dagaalka ugu adag hadda ku jira marka la fiiriyo xiisada taagan dhaqdhaqaaqyada dagaalka iyo waliba tilaabooyinka ciidamada Iran ay qaadayaan
ayaa dhinaca kale wajahaya dagaalka ra'yul caamka iyo waliba dhaliilida warbaahinta Mareykanku ay ku tilmaamayaan dagaalkaasi oo Mareykanka ku sababaya baa la yiri dhigbax dhaqaale mid sumcadeed iyo waliba in ciidamadii iyo sirtii Mareykanka barxad cidla ah lagu fashilinayo taasoo ka dhigan in Trump dagaal laga fiirsan karay uu goroda gashtay telefishinka uu ka mid yahay CNN-ka iyo kuwa kale oo Amerikaana ayaa bilaabay arrintaas inay ka sameeyaan la fogor iyo waliba uu iftiimin shacabka halka jihada dagaalku ay u soconayso waa sida ra'yul caamka Mareykanku ay arrintan u qabaan hasaate hadda mar kale ay xiisadu isbedeshay markii Trump oo arrintaasi u dulqaadan waayo uu ku anjabay telefishinadaasi in albaabada la isugu dhufan doono oo ruqsadii shaqada iyo ganacsiga laga qaadi doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in uu kala laaban doono ruqsada qaar kamida shirkadaha telefishinada Mareykanka kadib markii ay diideen inay si toos ah u baahiyaan baliyada khudbadii uu jeediyay fiidnimadii Khamiista isagoo ku tilmaamay arrintaasi in ay qayb ka tahay shirqool isaga looga soo horjeedo si shakhsi ah sida ay sheegtay wakaalada wararka ee Reuters laba kamida saddexda shabakadood ee ugu waaweyn ee telefishinada Mareykanka kuwaasi oo kala ah NBC iyo ABC iyo sidoo kale telefishinka CNN ayaa khudbada ka baahin kanaladooda waaweyn taas oo dhalisay dhaleecayn uu jeediyay Trump uu leeyahay warbaahintan dagaal siyaasadeed ay aniga igula jiraan waxana ay doonayaan in ay ugu majaxaabiyaan danaha qaranka iyo dagaalada aan Iran kula jiro khudbada Trump ayaa inta badan diiradda lagu saaray amniga doorashooyinka iyo sidoo kale 4 bilood oo ay ka harsan yihiin doorashooyinka muhiimka ah ee dib u cusboonaysiinta kuraasta kulaha Congress-ka Mareykanka ee wadankaasi Mareykanka Trump ayaa sheegay in NBC iyo ABC ay ku eedeeyeen in ay faafiyaan warar been abuur ah si ula kacna ay uga gaabsadeen baahinta khudbadiisa isagoo xusay in tallaabadaasi ay ka mid tahay in lagu qaado buu yiri ruqsadaha baahinta ee shaqada Mareykanka ay ka hayaan u saamaxaya tabaaqadii Khamiistii afhayeen u hadlay ABC News ayaa sheegay in khudbada Trump laga baahiyay adeega tooska ah ee ABC News Live iyo idaacadda ABC News balse aan laga sii dan kanaalka telefishinka ee ugu weyn sidoo kale ila xog ogaala ayaa sheegaya in NBC News ay khudbadu ku baahiyeen adeegyada plashka ah ee NBC News Now balse aysan ku sii dan baliyay kanaalka telefishinka ugu weyn iyadoo shirkadu ay ka gaabsatay arrintaasi wax faahfaahina inay ka bixiyaan ilaa iyo hadda dhanka kale CNN ayaa sheegay in ay la socotay khudbada si ay ula socotay wixii warar cusub oo ka soo baxa isla markaana ay si toos ah u baahisay boggeeda internetka iyo adeegga lacagta lagu isticmaalo ee CNN All Access warbixintu waxay xustay in adeegyada baahinta tooska ah ee ABC iyo NBC aysan si caadi ah u helin baliyada daawadayaal lamid ah kuwa kanaalada telefishinka qaranka halka adeegga digitalka ah ee CNN uu yahay adeeg lacag la'aan lagu isticmaalo isla markaana uu leeyahay daawadayaal ka yar kuwa janalka telefishinka ah ee weyn haddii aan eego sidoo kale caawa xaalku ma sahlana ninkii Trump ahaana kulley ma garanayo sida ay arrintan ula falgali doono ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iran waxay goor dhow baahiyeen aan iraahdo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee ka qayb qaadanaya dagaalka Iran mid kasta iyo goobta uu yaalo sawiradooda ay sii daayeen waxana ay leeyihiin Mareykanka waxa uu ku laaban doonaa ground zero meeshii uu wax ka soo bilaabay ayaa loo celinayaa waliba dowladnimada ilbaxa ah iyo casriga ayaa leeyahay maraakiibtan haddii ay dagaalka sii wadaan waxaan dhammaantood qoysan doonaa badda gunteeda sidaas ilaalada gacaanka ee wadanka Iran ayaa ku hanjabaya laakiin tani waxa ay sidoo kale muujinaysaa in xiisadda iyo xaaladda gobolka bariga dhexe ay uga sii darayso mustaqbalka iyo jihada ay u socon karayso marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan
balanego warbixin gaar ah uu ka qoray telefishinka la yiraahdo Al Jazeera qaybtiisa afka Carabiga oo si gaar ah warbixintan u lafaguraysa. waxa la leeyahay ciidamada badda ilaalada kacaanka ee dawladda Iran ayaa jimcihii daabacay sawirro muujinaya sida ay leeyihiin maraakiib dagaal oo Mareykan ah iyagoo sheegay in dhaqdhaqaaqyada ciidamada Mareykanka ay si dhow ula socdaan sida ka soo baxaysa xogta telefishinkan uu daboolka ka qaaday. bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in dhaqdhaqaaqyada iyo diyaar garowga ciidamada Mareykanku ay ku jiraan baaliri dhowr jeer kormeer buuxa taas oo muujinaysa dhammaan tallaabo kasta oo ay qaadayaan in dawladda Iran ay indhaha ku hayaan. waxa sidoo kale la sheegay in Mareykanka uu daqiiqad kasta ku sii dhawaanayo waxa ay ugu yareen saacad dhamaad ah oo ah waqtiga ay bilaabi doonaan howlgalladooda ka dhanka ah cutubyada badda ee taliska dhexe ee Mareykanka. hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli xiisadda iyo dagaalku ay hadda gaareen meeshii ugu adkayd. la taliye sare oo ka tirsan xafiiska Ayatollah Mujtaba Khamenei oo ah ninka ugu sarreeya dawladda Iran ayaa isna war aad u culus caawa sii daaya. waxa uu leeyahay heshiiska Islaamabad xagga Iran waa ka dhamaaday oo wixii hadda ka dambeeya Iran heshiis noocaasi oo kala ah ma aqbali doonto. waxana uu yiri waxaynu argudan doonaa si istiraatiiji ah oo dagaalka gobolka bariga dhexe ayaynu u qaadi doonaa si aad u xoogan. la taliyaha dhinaca militariga ee hogaamiyaha ugu sarreeya wadanka Iran ninka la yiraahdo Muhsin Rida ayaa sheegay in heshiiska is-afgaradka ee Islaamabad uusan hadda jirin baaliri isagoo si guud u xusay in loo argudi doono hogaamiyihii hore ee wadankaasi iyadoo loo marayo hanaan istiraatiiji ah. haddii la yiraahdo Khamenei ayaa loo argudayaa ninka uu wadnaha dhag leeyahay waa Trump oo dareemaya qataradii ugu waaweynaa isla markaana dagaalkanba uu u muuqday inuu u galay in isagoo ka baqanaya in si argudasho ah loo qaarijiyo sida ay tilmaameen mas'uuliyiin u hadlay hay'adda sirdoonka dibadda ee nidaamka Israel ee Mossad la yiraahdo xogtan Trump xafiiskiisa la wadaagtay. Rida ayaa sheegay in Iran iyo Mareykanku ay la macaamilayso baaliri laba arrimood oo aan laga tanaasuli karin. midda koowaad ayuu ku sheegay in Iran ay dalbanayso magdhow buuxa oo ku saabsan qasaaraha ka soo ragaaray dagaalka halka tan labaadna ay tahay waxa uu ku tilmaamay argudka lama huraanka ah ee dhiigga hogaamiyihii hore. waxa uu sidoo kale sheegay dilka hogaamiyihii hore in uu ahaa jabinta qadkii casaa ee dalka isagoo ku dooday in dawladihii hore ee Iran aysan ku dhiiran baaliri inay arrintaasi ka gaabsadaan sababo la xiriira cawaaqibka ka dhalan karayay iyo tallaabooyinka dawladda Iran ay sameyn kareen. sidoo kale waxa uu ka digay in haddii jawaab laga bixin dhacdadaasi ay weeqi karayso nidaamka amniga qaranka Iran isla markaana ay halis gelin karto baaliri ammaanka jeelalka mustaqbalka wadankaasi weeyaane taaban karaya. dhinaca kale Rida waxa uu sheegay in heshiiska Islaamabad uusan wax qiimo ah si lahayn isagoo ku eedeeyay in Mareykanka uu doonayo heshiis cusub oo lagu soo rogo baaliri dhinacyada kala duwan ee gobolka bariga dhexe taabanaya. hadalkan waxa uu ku soo aadayaa caawa xilli xiisadda dagaalka ee gobolka bariga dhexe ay cirka isku shareerayso. habeen wanaagsan khiyaartayna la socotay tabintan iyo taxliilintan oo aad daawanayseen caawa oo ay taariikhdu tahay 18 bisha July sanadka 2026. qaybtan intaas ayaan ku akanayaa wixii warar iyo dagaal ah oo soo kordhay ama isbeddelada ee gobolka bariga dhexe ka yimaada waxaad si wada jir uga heli kartaa bogagayga kala duwan Facebook iyo YouTube-ka adigoo labadaba subscribe iyo follow soo kala dhahaya. fadlan haddii aad halkan la soo gaartay